bal inaan dhowr eray 7 shay oo carwadani ay faa'iido keentay muddadii ay socotay 7 bishii noo bilaabatay ilaa 12 bishii shalay naga dhamaatay bal waxyaabihii laga faa'iiday dhamaan ay faa'iido keentay isbedel number 1 waxay horseedeen oran karaa isdhexgalkii ganacsiga ee gobolada Soomaaliland ee kala duwan waxay kulmisay dhamaan ganacsatadii Soomaaliland oo dhan kor u qaaday iibkii dadweynihii ka soo qayb galay iyo shirkadihii laftigooda way u horseeday profit waxay kale horseeday nabadgelyadii ayay door weyn ka geysatay hadday tahay nabadgelyadii magaalada Boorama gaar ahaan iyo guud ahaan nabadgelyadii lagu faani jiray Soomaaliland ay had iyo jeer waxa ugu weyn ku faanta ah aad bay uga qayb qaadatay iyadoo carwadu furneed 8 subaxnimo ilaa iyo 8 iyo barka habeenimo anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Gaashin Group oo runtiisa dad maqlayseerka ahayd shirkadii ugu horeysay ee ajiibtay markii ay dhalinyarada yar ay noola yimaadeen fikirka ah waxaan doonaynaa inaan aasaaso carwo cusub iyadoo ah tii ugu horeysay ee laga qabto gobolka Awdal gaar ahaan degmada Boorame ayaa waxa dhacday inuu si fiican aniga iyo maxamed madaxdiina sareysay ee maxamed caasimada Hargeysa aan si fiican sharaf u soo dhaweyno habeenkii xalay ugu dambeysay waxaan u maleynayaa cidii joogtay baa joogtay cidii ilaacada ka dhigaysay TV-da joogtay waxay dhamaatay ilaa 10kii habeenimo marka halka marxaati waxaad u aragtaa nabadgelyadii qofka 10kii habeenimo alaab soo iibtay sidii magaalada dhex maraya inayna jirin yani qof ama wax ka qaadanaya ama wax u dhimay taas nabadgelyada guud qaaliga ah ee calanka Soomaaliland ku xardhan aytiin bay ku xardhan dhalinyarada fursada qaaliga ah maanta kalay halkan inaan ugu imaado qorshaxooda markii ugu horreeyay maaha markii labaad waxaynaya qaliyaan diraya ilaahayna wuxuu ku baryayaa inay ku faa'iidaan dadkeena ku faa'iido dhalinyarada kale laga tagay runtii waxaan iibinayay alaab ka duwan carwada oo ah farshaxankii gacanta lagu sameynayay magaalada dhexdeedana lagu sameeyo runtii waxaan horta hooyaday guddoonsiinay hay'ad way ku soo gaadhay baan malaynayaa hooyo adiga iyo raxmaa maro ku xigeenka imikana waxaan guddoonsiinaynaa mid kale oo lagu qornay 18 May oo Soomaaliland ah xeero taaliga maalintii koowaad farxad weyn bay tahay carwadoono bilowgeedina aan ka qayb galay dhammaadkeedina maanta joogaan aan markaa ahayn mas'uul gobolka aanan ka ahayn laakiin mas'uul qaran ahaa ayaan ka qayb qaatay waasna dhalinyaradu way ku xusi doonaan inay joognay munaasabadana waxaan aad ugu faraxsanahay magaalada Boorame oo kullayba magaalo marka aad timaado aan ku cad garanaynin ee farxad lagala kulmo qof yar iyo qof weyn badad wanaagsana oo dadegana waxaan ku faraxsanahay inay noqoto magaaladii ugu horeysay ee Hargeysa ka baxsan ee carwo noocan oo kala sameeyay halkan kalena maan diidin oo ina shacabka u tuntaan inay noqoto magaalo madaxda labaadba waa han wanaagsan yeelkee waxaan doonayaa inaan mar kale dhiirigeliyo dhalinyarada fikirtay ee ku fikirtay inay mashruucan oo kale samayso dhalinyarada fikirtay ee ku fikirtay inay ganacsatada intaan leeg iyo dadkii ka adeeganayay isu keento dhalinyarada fikirtay ee ka wanaagsan ee ka duwanaatay ka intuu qayilayo saacadaan ku fikiraya waxaan shaqadana wax uu curinayaana jirin inaan maanta ka soo qayb galno xidhitaanka xafladii carwada ee lagu soo bandhigay Boorama taasi oo maanta koobsatay farxadii iyo qosolkii aad u ballaaran kaftana aad u fara badan oo duurxula iyo kala jiidaso caasimadii labaad ismaaban lahayn muran baa ku jira laakiin dadaalkeeda u ballaaray maryaa runtii waqtigan aan ku socono haddii aan aad hoos ugu dhaadhaco
waxaa nagu hogaaminaysa marwada madaxweynaha marwa Aamine Sheekh Maxamuud Shirde waxaa ka tirsan wafdiga madaxa samafalka Aamine Maxamuud madaxa xuquuqul insaanka Fatxiye Xaaji Xuseen safiirka Soomaaliland u fadhiya Iswiidhan Rooda magacaas agaasimaha carwada taas waxay caddaynaysaa in ay tahay haween badan oo xil ka haya xukuumadda Soomaaliland in ay maanta xafladan iyo farxadan anigoo afkooda ku hadlaya kuna farxaya kuna qoslaya waa ni hambalyeynayna waxaan salaam gaara iyo bogaadin u jeedinayaa Cabdishakuur iyo inamada dhalinyarada ee maanta inoo soo abaabulay ama inoo soo bandhigay carwadan qiimaha leh ee runtu siday tahay magaca iyo sharafta u soo jeedisay magaala madaxda gobolka Awdal ee Boorame waxa lagu yiqiinay wixii badnaa ee taariikhda u galay Somaliland ee ay ka mid tahay caasimada waxbarashada hooyada waxbarashada ee Somaliland nabadgelyada midnimada Somaliland xoojinteeda jacaylka inay reer Somaliland mid noqdaan horumarka Somaliland waxaasoo dhan bay Boorame hooyo u ahayd oo hormood u ahayd maantana waxaa liiskaa dheer ku soo kordhay inay dhalinyaro firfircoon oo Somaliland oo muwaadiniina oo horumar iyo waxqabad ku fikiraya Boorame ku nool yihiin ay hormood u noqdaan dhalinyarada kale reer Somaliland ilaahay waxaan ka baryayaa in laydinkaga daydo waa wax fiican oo laydinkaga daydo liiskiinii badnaayee sharafta lahaana way ku beertaa intaa ka bacdi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in carwadan maanta ka sakow hay-adihii waaweynaa shirkadihii waaweynaa ee sharafta lahaayee Berbera Port iyo Dahabshiil iyo Meecaad iyo Hoon Group iyo ka sakow urur dhalinyaro haweeney ka hormood yihiina inuu halkan shahaadad sharaf ka helay ayaa ku faraxsan haweenka reer Somaliland أول ما كرتيرة إيه أقامته إيه وحقبت كوال لبويقين كور هير بور من وحقرية إن الهرمود كيني وأنا حبالي أنا دين صادرة يا دلنا يرد هير سومالي لا بودهان وأنا يدين قرب تاجنا هاي دل كان يدين كانوا يدين سيحينا مستقبل كده كاتهين ددال إيو كرتي إيو مواطنين من وأنا يدين كوبنا هاي لا هي وحنا خبرينا وقتنا قادان أننا أنضر قرح بدن أو في عن إديسي هاينو